boqolaal qof oo u dhashay dalka Rwanda oo lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka hubeysan ee ka howlgala bariga Jamhuuriyadda Koongada Dimuqraadiga ah ayaa lagu wareejiyay mas'uuliyiinta dalka Rwanda asbuuciyo kadib markii ay ciidamada Kongo ay qabteen sida ay ku waramayaan saraakiisha dalkaasi. Wakaaladda wararka AFP ayaa ka soo xigatay kabtan Diodene Kasiraka oo ah afhayeenka ciidamada Kongo ee gobolka South Kivu in ilaa 17 jabhadaha ka tirsan iyo 1500 qoysaskooda ah la geeyay xuduudka ay wadaagaan labada dal ee Rwanda iyo Kongo Sabtidii shalay. Kooxdan ayaa la sheegay inay ahaayeen xubno ka tirsan maleeshiyaadka loo yaqaano CNRD oo ah koox ka farcantay jabhadda hubeysan ee FDLR oo ay bariga Koongada Dimuqraadiga ka aas-aaseen qaxootigii ka soo hayaamay xasuuqii 1994 ay qowmiyadda Huutsigu u geysatay dadka laga tirada badan yahay ee Tuutsiga. Bariga Koongada Dimuqraadiga ayaa waxaa la haray dagaalo ay ku lug leeyihiin kooxaha kala duwan oo u dhexeeya qowmiyado isku haysta maamulka kheyraadka macdanta aagaasi. Milatariga Kongo ayaa sheegay in ilaa 300 oo dagaalamayaal ka tirsan jabhadaha loo duuliyay dalka Rwanda horaantii bishan kadib howlgal ay ciidamada Kongo ka sameeyeen gobolka South Kivu. xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Mike Pompeo ayaa cambaareeyay Ruushka iyo Shiinaha maalintii Sabtida ee shalay kadib markii labada dal ay ka soo horjeesteen qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ahaa in gargaarka bani'aadminimo uu u gudbo xadka Syria. Pompeo ayaa hadal qoraal ah ku yiri didmada Ruushka iyo Shiinaha ee shalay ee qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ogolaanaya in gargaarka bani'aadminimo uu gaaro malaayiin dad oo reer Syria ay tahay wax laga xishoodo. Pompeo ayaa yiri Ruushka iyo Shiinaha kuwaas oo doortay inay sameeyaan bayaan siyaasadeed iyaga oo ka soo horjeestay qaraarkan dhiig ay gacmaha kula jiraan. qaraarka ayaa lagu kordhin lahaa muddo 1 sano ah oo gaarsiinta gargaarka xuduudaha ah ee laga keenayo Turkiga iyo Ciraaq ilaa iyo 4 milyan oo rayid ah oo reer Syria ah oo ay waxyeello ka soo gaartay dagaalada Syria ay bilowday sanadkii 2011. Didmada labada dal ayaa kor u qaaday cabsida ah in gargaarka ay maalgelinayso qaramada midoobay laga hor istaagi doono in uu galo gobolka Idlib iyo sidoo kale aagaga kale ee ay mucaaradka gacanta ku hayaan ee Syria haddii aan heshiis kale la gaarin ka hor inta uusan dhammaan qaraarka hadda jira ee dhamaanaya wax ka yar 3 toddobaad. Faahfaahin dheeri ah ayaa laga helayaa qaraxii xalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo oo ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof. Qaraxaasi waxaa mas'uuliyadiisa sheegtay ururka Al-Shabaab. Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray. xaaladda magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa degan kadib weerarkii qaraxa ee lagu qaaday kolonyo gaadiida uu la socday taliyaha ciidanka dhulka Soomaaliya Generaal Cabdixamiid Maxamed Dirir kaasi oo maalmo ku sugnaa gobolka Mudug. weerarka oo loo adeegsaday gaari ayaa dhacay xilli bartamaha koonfurta Gaalkacyo ay ahayd mashquul aad u badan, waxaana qaraxa uu geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac gaaray ciidankii la socday taliyaha iyo dad rayida oo ka agdhowaa halka la weeraray. inkastoo xilliga weerarka lagu qaadayay taliyaha uu ka baxay hoteelkii uu deganaa islamarkaana uu ku sii jeeday kulan uu la lahaa odayaal iyo waxgarad, haddana ma jirin khasaare gaaray saraakiishii ciidanka. hase ahaatee khasaaraha ugu badan ayaa waxa uu ku dhacay haweenka qaadka iibiya iyo kuwa ganacsi yaryar ku haysta halka ay wax ka dhaceen, waxaana goobaha caafimaadka la gaarsiiyey bukaanno ay waxyeello ka gaartay weerarkii dhacay. duqa degmada Gaalkacyo dhanka Galmudug Xirsi Yuusuf Barre oo aan kula kulmay halkii qaraxa uu ka dhacay ayaa si kooban uga warbixiyey wixii ka dhacay koonfurta magaalada Gaalkacyo. bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. ilaahay mahad iska leh. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. xalay halkan waxaa ka dhacday khasaare xoog leh. dad shacab ahoo fara badan baa waxna ku dhinteen waxna ku dhaawacmeen. waxaan leenahay ilaahay intii dhimatay ha u naxariisto, inta dhaawacana allah u boogadhayo. xalay abbaara 2 saac iyo barkii baa meeshan aan taagannahay. baabuurkaas aa u jeedaan oo halkaa birihiisu ka muuqdaan baa isku qarxiyey. waxaa lala beegsaday baabuur ciidamada xoogga dalka ay leeyihiin
khasaaraha dadka shacabkaa soo gaaray baa aad u fara badnaa. dhaawacu wuxuu dhan yahay ilaa 40, dhimashaduna 7 nu xaqiijinay. wax kalena way dhici karaan ilaa hadda waxbaa kala maaragtay meelaha kala yaalla. intaasaan sheegi karaa. haddana saakii meeshii nadaafadeedii iyo qofkii midkaa isqarxiyey inaan aasna iyo waxaasaan u joognaa. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. intaasaan idiin sheegi lahaa. agaasimaha isbitaalka koonfurta gaalkacyo doctor maxamed cabdi axmed ayaa ka warbixiyey bukaanada la gaarsiiyey isbitaalka iyo xaaladooda caafimaad. xaalato abaari 8 habeenimo ayaa waxaana soo qarax ka dhacay magaalada gudaheeda. ayaa waxaa ka yimid muxuu ahaa dhaawacyo badan baa runtii isbitaalka yimid oo ilaa xal dhan loo shaqeynayay. dhaawacyada guud ahaan waxay gaarayaan 55 dhaawac ah oo isugu jira iyo 5 dhimasho ah intana soo gaaratay. dhaawacyadaas runtii aad bay u kala darnayaan, xaaladoodu ma sinayn. kuwa qalin caloosha lagu sameeyey ilaa 2 kamid ah, 3 kamid ah muxuu ahaa feeraha ayaa tubooyin laga gelshay, mid kamid ah gacan baa laga jaray, 7 kale waxa weeye waa jajab, hal qof kalena waxa weeye waa dhaawac madaxa ayaa jira. inta kalena waa dhaawacyo fudud. dadka meesha aan ku qabilnay muxuu ahaa oo aan u shaqeynay ilaa hadda joogaan waa dad shacbi weeye. meedadka 3 waa la keenay, 2na shaqay ku dhimatay. runtii wax badan baan ka qabanay xalay alxamdulilah. ilaanse culayska jira awgeeda xagga muxuu ahaa qalab ha noqoto iyo wax kalaba ma wada kafayn karno. qaar kamid ah waxay u baahanayaan in muxuu ahaa facility inta ka badan loo helo oo muxuu ahaa loo qaado meelo kale laga qaado. waxaa jira dad bukaano ah oo dhaawacyo idin soo gaaray oo inan awood u haynin inaad wax ka qabataan oo aad ugu baahateen in meelo kale aad u dirtaan. dhaawacyada runtii aan soo gaaray ilaa hadda intii nolol keenay dhammaan cid kasta horba loo sameeyey. qaarkood waxay u qaban karna waxay ahayd inaan u diyaarino sida safar u geli lahaayeen. inta kalena waxbaa laga qabtay. jajabka kale runtii waxay u baahan yihiin in xamar loo qaado ugu yaraan inta badan. maleeshiyada al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxa sababay dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhacay magaalada gaalkacyo dhanka galmudug. ma ahan markii ugu horreysay oo qarax ismiidaamina uu ka dhacay gaalkacyo, waxaana qaraxan kii ka horreeyey uu dhacay bishii 11 sanadkii 2018, kaasi oo lagu weeraray xarun uu lahaa wadaadiimeed. cabdiwaaxid macalin isaaq, VOA, gaalkacyo.